بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يلا كدو هذا برنامج كيني عافمات مركلة إيو عنوانكي كان كانسر. برنامج كينا نقوري ميكو هذا لناي كانسر مايليره ماينا لك كاسي قيبتون لما برنامج كان ماينا ضدون تهو بلاها ير كانسر أي النقول أما كانسر ما يسوى بكر سنة لكو كور سيدة أمريكا تعالي إن قيبتوكو بدو كانسر أي النقول أما كانسر ما يسوى بي sidii oo culimada caafimaadka sheegeen kansarka wal gaar ah ama wal oo leerow walaama sababay boqolkiiba boqol ma jiraan laakiin way jirtay waxyaabo lantiiriyo ama waxyaabaha leerow qofka nuglaayo koronay kansarka dhii oo kaleeto iyo jiraan waxyaabo badan koomay kumid ah kansarka may galay hidigale markii uu leena kansarka may nagday wal la xiriira DNA sidadka ka saayeen DNA waa dhacaan oo ka jar unugyada dhatiyo marka dhacaankaasiti waa silsiladaas oo qaldanti yamaynaada kortay marka inay kansar sababta tusaale ahaan dadka qaba kansarka naaska family hadii qof waalid shay ama awoodis ama aadis ama habaryartiis oo kale to kansarka naaska qabti may qofkaasiti inuguliya inay qofkaasiti uu siina kansarka naaska kadii oo kale to saas daraadiya may leeyahay marka kansarka hidigale mararka qaar waxyaabaha qaar oo kale oo kansarka sheena umay kumid ah wala xiriira deegaanka caadiga ah ama lankasaw environmental factors lankasaw oo eedan badan waxyaabahaas may number 2 ku ah oo kansarka sababo dabeecado qaar oo dadka leh tusaale ahaan dadka balwada leh oo kaleeto kansarka may eed la xiriiriyay balwada gaar ahaan dadka isticmaalo tuwaakada sigaarka sheeshada oo baryaalku eetanka badati wadanka iyo jaadka iyo khamrada may leeyahay boqolkiiba in ku badan 20 kansar may sababay tuwaak iyo sigaar ya sababay balwadi hadda waxyaabaha oo la xishoodana oo dadka dhatiyo ildanka isticmaalo may ku mid ah sigaarka oo kaleeto sigaarkana may ku sameeysan tuwaaka ama chemicals ama waxyaabo oo chemical ku sameeysan oo qofka jirka bani aadamka haliska oo kansarkaas sabab kor sigaarkii marka hadda may baargaasa in qofka isticmaalo xataa isku dhaaf dadkii kale la isticmaalsiyo oo yana halis ingili korta naftirsho inay qofka ka isticmaalo meel bulshada eedanka badanta ka kooyas oo kaleeto tusaale ahaan in meelay dadkii baabuurtii dadku ku dhaxayti oo biyeeladi lan sigaar isku kushadada oo ka dhaxdhuugo oo kaleeto in meelay suuqyaalkii dadkana isku kooyaan oo kaleeto in qofka sigaarka isticmaalo marka waxyaabaha oo sigaarka ama tubaakada ku sameeysan waxyaabo eed la xiriiriyo kansarka iyo number 1 ku ee may kale kansarka la xiriiriyay alcoholada oo kaleeto ama khamradana may kumid ah waxyaabaha kansarada la xiriiriyo sida sigaarka balan la xiriiriyo kansarada iyo lamid ah alcoholada may eedan sababaasay kansarada ka dhiyo dheef shiidka oo kaleeto ku bilaw doonta ilaa mindheere ilaa beerka kansarada sababo kumid ah iyo kansar kale oo jirka kale leeyahay marka saas daraadiye kansarada marka waxyaabaha deegaanka la xiriiriyo may koow ku aha balwadaas koow ku ah waxyaabaha kale may la xiriiro oo kansar kale la xiriiri karo ama qofka nuglaayo karo may kumid ah waxyaabaha oo shucaac ama sawirada oo qofka laga isticmaalo oo caafimaad ahaan laga isticmaalo ama radiations lankasaw radiations kaas may naga korana hani caafimaadka laga isticmaalo caadi imay naga korana iftiinkii oo iriida caadiga hay lata dadka waqti badan ka qaado meelo eed an kulul oo maalintii dhan muddo badan la rogo yoona may leeyahay ma halisan ka jarna kansarada maqaarka ka dhigo oo kaleeto dadka sidaas oo kaleeto oo radiations kaas ama shucaacyadu oo sawirada laga isticmaalo badana oo korsho deero ama ka dhigo yoona kansara yoona halisan ka jara waxyaabaha kansarada la xiriiriyo may ku mid ah infectionada oo lagu bilaabo virusyada qaar oo kansar la xiriiro oo ku horeeyaan kan virusyada lankaasoo hepatitis B ama virusyada cagaarisho ugu sheeno hepatitis B iyo hepatitis C kansaradaas virusyada may sheenayna marka kansara oo ka dhigo beerka iyo eedan sheenaya yoona may la xiriiriyay kansarada beerka infectionskaas marka may jira virusyo kale oo yoona kansar la xiriiriyo sida oo HIV viruskaas oo sheeno AIDS-ka taasoo kale may sheenay kansar oo ka dhigo maqaarka virusyada kale oo sheeno oo kansarska may kumid ah virus lankasaw human papilloma virus oo uu siin sheeno kansarada ka dhigo oo caanka minka afshay xubinta taranka dumarka
iyo minka intan dhaxayta tubadan dhaxayta kansarada ka dhigo viruska sheeno uu siina may ku mid yahay virusyada ama infectionada oo qofka nuglayo inay kansar ka dhigo waxyaabaha kale oo sheeno kansarka oo infectionada ku mid ah may ku mid aha bacteria oo dadka xanuun aaminsanayn in infection inay sheeno korto kansar may caan ee marka oo ku mid ah bacteria ama infectionada sheeno jeermisyada sheeno cudurka lankasaw gaaska Soomaalida gaaskan kasaaya ama caloolada oo boognagata bacteriadaas may leedahay H pylori dadka hadda si badan baradeen magaasha dad badan iyo baradi marka H pyloridaas in muddo hoobo qofkaas qaba oo calooladiis boognagata oo duleela may insabab kortay in kidii kansarkii caloolada waxyaabaha kale oo kansarka oo la xiriiriyo may ku mid ah infectionada fungi waleero fungus ama silankaso fungus kaas may ku mid ah nooc oo carada ka noolado fungus kaas oo lankaso aspergillus carada ka nooliye marka may la xiriiriyay marka cuntooyinka oo carada dhulka ka baho ama dhulka la ka keediyo oo kale tusaale ahaan una wadankaana may eed ama deegaankaana may eed caanka badarkan la isticmaalo ama wala beero ku goho inay la ka keedi dhulka hoostiis inay dhulka hoostiis la ka keedi meelina marka maadaama ku nooliye fungus kaas may eedan ka nooladay marka meelo hirin oo huurka eedan ka nooladay walaa marka raashinkii maadaama la ka keedi dhulkaasaytii may ka koray raashinkii ka koray oo bani aadamkii hoob isticmaala marka sun yaha saare fungus kaas oo lankaso aflatoxin suntaas marka may sababaasa in beerka dhaawacda oo sheenta kansarada beerka ka dhigo waana bulshada tiitaana deegaankaana eedan ka badan waxyaabaha la xiriiriyo kansarka beerka ama bugfuurka dadka oo baadiyada ka nool bugfuurka inshaano ya sabab naga korto oo la xiriiri karo waxyaabaha oo kansarada oo sheeno oo la xiriiri karo may kumid qofka oo nololis oo lankaso nolol caadi qofka ka nolol caadi ma ee marka qofkii inuu wal isticmaalo wal hunguro isticmaalo shaqadiisada jeefada oo dhagaag bun soo bir ya nololaas maylan kasay sedentary life nolol caadi ah qofkaas wal oo activity ama dhagaag uu soo biima leh maadaama qofkii saas hayna meena qofkii inuu dufanti jirshay ka badad miisaan jay badad qof oo cayilin buurug nagada qofkaas oo kale tan may halisin ka jira marka kansar qofkaas ma isticmaale marka hilibkii gaduudinay oo kale eedan isticmaale waxyaabihii oo la shiilay oo kale eedan isticmaale intaas oo dhan may sabab naga korana marka kansarkii iyo sabab naga korana nololaas caadi qofka ka nool marka waxyaabaha kale oo kansarka sheena may ku mid oo la xiriiri karo may ku mid daawooyinka qaar kansar la xiriiriye may ku mid hormoonada qaar oo bilaanta isticmaalaya gynecology dhakhaatiirta ay hanqoraaya may ku mid bilaanta isticmaalayaan kaniiniyalka oo uurka lagu horseedo oo kaleeto ama Soomaalida kasaas bulshada caadiga kasaayan vintoonada kaniinka 21 waxba ka kooban oo hormoonas ku sameeysan inay u siina waxyaabaha la xiriiri karo markii baaritaan cilmiyeed la sameeyay la xiriiri karo kansarka la aragay may kale ku mid aha daawooyinka oo la siiyo maamooyinka oo dhagmaado ku bahi ama dhalmadu gooy maamooyinkaas may ka yaraaday hormoono ka yaraaday maadaama hormoono ka yaraaday marka may la siiyay daawooyin oo bedel daawooyinkaas si moral sholanka dhis la foosholanka adkaay daawooyinkaas yoona may la xiriiriyay kansar la xiriiriyay waxyaabaha kansarka la xiriiriyo oo qofka nuglaay karo may ku mid waxyaabaha oo shaqo la xiriira oo kaleeto dadkan oo kaleeto oo dhulka qodo oo kaleeto macdanta qodo oo kaleeto dadkan alwaaxyada ka shaqeeyo oo kaleeto dadka miraayado jaro oo kaleeto meelwaas maxay ku baahay marka waxyaabo chemicals kaas iyo qaadaya in jirshoon guduban sambabshoon guduba maqaarshoon guduba jirsho kale guduban antaas oo dhan qofka ma nuglaayeen marka inay kansar ka dhig marka antaas may waaye waxyaabo qofka nuglaayay kori inay kansar ka dhig salan ku horseeda marka kansar sanan taale salan la horseeda kansar maylan ku horseeda kore kansar inay waxyaabihi sheenay kansarka inay qofka ku digtoonada tusaale ahaan haddii qofka hidin oo jari oo kansar oo family shay ama qoys shay dad horey kansar han ka dhig ama dhimadan jaran inay qofkaasiti mar walba isku warqaba bilaanti oo kale to kansarada naas ka dhigay oo kale to haddii jarta maama dadka badan ama ogaado kor dadkii kaan hor badan baaritaan wal meesuu biyaan ma ogaado kor marka may jare selku ogaado kor bes meelku ogaado kore
maama habaryarta ama awooda meel ku yaabe in la keer awooda naasa ku bukoti naasa ku holowti ama naasa aan dhimata la keer marka hadii marka qofka mar walba uu isku warqaba hadii heerka koobad iyo heerka lamaad usurooga ma eedan fudud in la tacaala ama in la jaroba meel markaaseeti kansarkaas negative may kale kumid ah may kale lan ku horseedo kore kansarka qofka waxyaabaha deegaanka la xiriirin hadaa sheegan oo kaleeto sida balwada oo kaleeto qofka hadii uu isticmaalay sigaar oo kaleeto inuu sigaarki rooji ma lambalanki ku sigaar dhugo badan aku isticmaalo badan yama in ku dhowya kansar lanki maalintii isticmaalay 5 baak sigaar ah ilaa hal baak sigaar ah muddo kansarka ka dhigo may eedan badan kan 5 baak sigaarka isticmaalo lan 20 sano sigaar isticmaalay ilaa hal sano sigaar isticmaalay kan 20 ki isticmaalay yana eed kansarka oo ku dhaw in kasto qadar ee tahdana meel la xiriiriyay sababtaas la xiriiriyay in qofka marka sigaarka isku dhaafa hadii qofkaas aakul isticmaalay in aakulada ama khamrada isku dhaaf isticmaalowshe waxyaabo kale hadda oo deegaanka eedan ka badleen ama wadanka eedan ka badleen oo la argo oo sheeshada yana sigaarka walba aan dhaagna iyo eedan ka badleen dhalinyaradii xataa isticmaalaan soo magaaladii eedan isticmaalayaan marka in waxyaabahaas oo kaleeto yana sigaarka lamid ah oo kaleeto in qofku uu siino rooji caafimaad shay dartiis in rooji may kale ku mid ah kansarada lan korseedo kore oo kaleeto in qofka qaado talaalada oo cudurada oo viruska oo beerka sababo gaar ahaan may la helay talaalka leerow cudurkan hepatitis B virus talaal shay la helay qofkii inuu soo qaado oo kaleeto ama hadii ilaahay insabab ama inuu iska dhii markaaseeti nagat cudurkii ka dhii inuu qofkaaseeti cudurkii mar walba la tacaala dhakhtar shay araga daawooyin shay isticmaalo oo kaleeto may kale ku mid ah waxyaabaha lan korseedo koro kansarka qofka oo ilayska iriida ama iriida badana la kulmo ama iriidan kulul ka shaqeeyo oo kaleeto inuu isticmaalo dhar iriida isku reebo oo inuu isticmaalo kareemo lanka tirgalay jirto oo iriida lanka tirgalay oo protective ah inuu ismarsado oo kaleeto yani iyada muhiim ah waxyaabaha kale oo muhiimka ah may waaye in dadkii baadiyada kanool oo kaleeto caradii wala ka keysayso in haday horaan sheegnay oo kaleeto funguskaas oo suntaas aflatoxintas leerow mungurigaas ka qasamo kor ama ko wasakh oo kor in qof dadkaasaytin isku ilaaliyaan munguriga la isku nadiifi si fayl lantuma si fayl masku kariyo waxyaabaha lan korseedo kor ku mid ah waxyaabaha lan korseedo kale may kala ku mid ah qofka nolol caadi kanool haday oo kala sheegnay oo kaleeto in nololis wal ku bedela tusaale ahaan qofkaasayti cuntidiis aamay ko ku bilaaw inuu iswal ku bedelo cuntidiis hadii uu hayti cunto oo barur iyo hilib la sheeli ama hilib lay bes hayti inuu isku yaraay oo badi dhinaca qudaarta oo kaleeto iyo waxyaabaha qudaarta cagaaran iyo fruitka caadiga inuu isticmaalo qof ibi badan ee isticmaalo waxyaabaha kale usuubi oo qofkaas nolol caadi kale ku nool may ku mid ah inuu qofkii jimicsi isu bilaawo dhagaag isu suubi oo aan fadhiyeen oo kaleeto aan fadhiyeen dhagaag isu suubi waxyaabaha kale lan korseedo may ku mid ah dadka ka shaqeeyo meelo waxyaabaha kiimikada ku bahayaan sida dadka dhulka qodow macdanta qodow dadka alwaaxyada ka shaqeeyo dadka biro jarow dadka oo muraayooyinka jarow oo kaleeto inay isticmaalaan waxyaabo oo lan korseedo waxyaabo oo ku reebo oo inay mask oo sanka walkiiridan oo kaleeto in waxyaabo boorkas ku reebo oo isticmaalaan oo kaleeto waxyaabaha kale oo lan korseedo kor may ku mid ah in qof maamada hadii isticmaala si kaniiniyal urka lan korseedo oo kaleeto in joogteena oo kaleeto ama inuu isku yaraayt ama in dhakhtarka kula talat hadii dib insheeneen hadii kala sanan la tacaala marka kansar meelan la tacaalay kansar sid qayb yalan la tacaala qaybtu koobad oo ah in kansarki daawooyin la isticmaalo oo lan ka soo chemotherapy daawooyin caadi la isticmaalo ama hormoon la isticmaalo may kale la daaway kore kansarki in la gubo kansarki radiations wala rawlan isticmaalo may kale la isticmaalo kore kansardaas in la jar waana daawada saxda oo kansarkana may waaye kansar in la jar daawadiis in la jar oo la gooy daawadiis saxda may waaye in la jar oo la gooyo kansar marka qofka daaweyntiis may ka hirinta marka qofka daaweyntiis may ka hirinta kansarka nooca uu kudhii meel uu sakiyaala qofka heerka ismarahay kansar iyo markaas daada qofkaas uu sijara iyo xaaladda caafimaad qofkaas isku soo yahay hadii jir kale la jarta iyo hadii jir kale la jar kansarkaas leeyahay ama hadii kansarkaasaytii kansar kala la jar oo kaleeto yaki hiranta marka sadiidaas nooc yeelan daaway kor kansarka iyada ma hasantiin